halka idin dhageystayaal warkaasi kala socotaana waa Radio Golchano imkiya haatana wararka dibadda askari Mareykan ah ayaa waxaa sii daayay kooxda Taliban ee wadanka Afghanistan marbay u ahayd idaacadda Radio Golchano Maxamed miduu isku dhaafin jiray waqtiga adaga uu xilligaasi ku sugnaa Radio Golchano waxa uu record aan canjilad gelin jiray codkii ku duubi jiray anigu wali iska dhigaya isla markaasina aan ka dhigay idaacad caadi ah oo la dhageysan karo una hanaan iyo qaab idaacadaha sida Radio Hargeysa iyo BBC doka waxa uu soo maray dharaare kala duwan oo isugu jira qosol iyo murugo idaacadda Radio Golchano waxay ahayd wehelkan wali ka go'inmaanka Maxamed Haldoor lixaadleyda qaybta ugu muhiimsan bay ka soo qaadatay way qorxisay way qaabaysay Radio Golchano waxay ahayd CV-ga kaliya ku shaqo tago meesha ugu badan ee ay siisay waxyaabo badan oo u baahnaa oo nolosheeda haday noqoto horumar iyo horusocod dhageysiga idaacadaha ee raadiyaha waxa uu kala socon jiray saacad iyo minute taasi oo kala socon jiray recordkan oo markii dambe ula baxay Radio Golchano laakiin Maxamed Haldoor rajadiisu waxay ahayd wallahi runta haddaan kuu sheego markii aan yaraa ee aan waxbarashada waday marna kuma fikri jirin inaan wariye noqdo xitaa ma xiisayn jirin laakiin markaan xanuustay in laxaadkii uu waayay aan idaacadda dhageysan jiray waqtigu i baray inaan wariye noqdo markaas ay ku dhalatay ay ka bilaabantay laakiin markii hore may igu meesha markii hore kale idaacadda canjiradan codka ku duubi jiray canjiradan markaan ku duubi jiray codku waxay ahayd codkaygu markii hore wuu yar xumaa aad buu u liitay laakiin markaan ku celin badan sameynay wanaag badan iyo qurux buu yeelan jiray codkaygu aniga qodayda iska helay inaan wariye noqon karo adigu ilaa canjiradan oo 10 ayaan duubay qaabkan u duubi jiray tan kaaga sheekeeyo idaacaddu canjiradu laba dhinac bay ka koobantay dhinac kamida ayaa aan ka bilaabi jiray ano steelka raacay Radio Hargeysa oo kale qaabka idaacadda Radio Hargeysa soo gasho wariye markuu muusigii soo galo wariye baa fura dadku ku soo dhaweeyay idaacadii waxa ku xigtay inuu quraan dhaaro deetana uu barnaamijyada iyo wixii kale dadka u hayay wararkii sii daayay ka qaab noocaas waxa jirtay canjirada markii dhinac dhamaado dadkii si aanay u moodin waxay idaacadan iska baqtiday ilaa qof aqoon marka dhageysinaysa waxaan oran jiray dhageystayaal idaacadayda waa canjilad xaga kale wareegsada wararka iyo warbixinada aad u la socotay marka idaacadana ka ahaa wariye waraqriye xiriiriye barnaamij sameeye sidoo kale ana mulkiila ka ahaa Atletico balse goolhayayaan oo plank ayaa ka badbaadiyay waxa la gaaray waqtigii ay sugayeen kumanaan jamaahiirta kooxda Real Madrid daqiiqadii 15aad ayaa Sergio Ramos hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Real Madrid markii uu goolka agtiisa ka helay kubad uu madaxa ku taabtay Bale ka hor inta uusan laad xora geesta ka soo qaadin wiilka reer Jarmal Toni Kroos Xamse Dabariski Cable TV Hargeysa soo dhawow Sky Cable TV haddii aad rabto inaad lacag ku shubato ama aad qof kale ugu shubto garaac xidig 390 Afargees ama xidig 39 eber Afargees kadib raac tilmaamahan haddii aad rabto inaad lacag ku shubato taabo hal haddii aad rabto inaad qof kale ugu shubto ama nambarkaagu aanu ku diiwaan gashanayn taabo 2 adigoo sii raacinaya 8 nambar ee card receiver-kaaga haddaba markaad intaasi ka timaado raac tilmaamahan haddii aad u baahan tahay daawade inaad ku shubato 1 bil dooro nambar 1 haddii aad u baahan tahay sidoo kale inaad ku shubato 3 bilood taabo nambar 2 haddii aad u baahan tahay inaad ku shubato 6 bilood taabo nambar 3 haddii aad u baahan tahay ugu dambeyn inaad ku shubato 1 sano taabo nambar 4 haddaba haddii aad dooratay qodobadaasi mid ka mid ah fadlan geli biinsaadkaaga Cable TV waa dooqa dadweynaha